garoonka ay ku ciyaareen qaranka Ingiriiska ee Wembley. Kooxda City ee sidata horyaalka Premier League ayaa casharo sida loo ciyaaro waxa ay bareen kooxda sidata horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League oo ilaa ay hadda la yaaban in cidda ay la ciyaareen ay ahaayeen ciyaartoy caadi ah ama duul meel kale ka yimid. ciyaarta markii ay bilaabatayba waxa fagfag badnayd oo la celin waayay Liverpool oo soo qaaday weerar jiha kasta ah hase yeeshee City kama waalin. ujeedada tababaraha Liverpool ee Jurgen Kloppna waxay ahayd in waqti aan la siin oo la boobsiyo City si aanay fursad ugu helinba inay la timaado qaab ciyaareedka ay ku caan baxday oo jilbaha u laabay kooxo badan oo Yurub ah. hase yeeshee sidaas ma noqon oo 12 daqiiqo kadib ciyaarta waji kale ayay yeelatay oo City inta ay soo jeesatay waxa ay la soo baxday ciyaartii lagu yaqaanay oo ku dhisan isu dhidhiibid aan hakasho aqoon oo ay ka qayb galayaan dhammaan ciyaartoyda marka laga reebo goolhayaha. waxaana dhacdayba in Liverpool ay kala garan weysay ciyaartoyda Man City kuwa difaaca ka soo jeeda kuwa dhexda loo xil saaray iyo kuwa weerarka ah. maxaa yeelay 10 ciyaartoy ee City waxay wada ahaayeen marna difaac marna khadka dhexe marna weerar. waxa dhacaysayba in weerarkooda saddex aflaha Sterling, Zane iyo Silva ay ka qayb galayaan kuwa khadka dhexe ka soo jeeda iyo kuwa difaaca loo xil saaray. sidaas ayay ciyaarta oo dhan ula wareegeen. Man City goolkeedu hore wuxuu ahaa mid si wacan oo wanaagsan oo kubadda ciribta ugu baasay ciyaaryahanka khadka dhexe ee dalka Spain David Silva waxaana shabaqa u ilaada ka ah Alisson ku dharbaaxay Sterling. It's steered down there towards David Silva. Sterling and it's managed to wriggle its way through under the goalkeeper Alisson. And it's Manchester City who score first in the Community Shield. And it's Raheem Sterling from point-blank range. It's Liverpool 0, Manchester City 1. wuxuu ahaa gool ka naxiyay Liverpool oo ay ku soo dhaweydba inay isdhiibto. Jurgen Klopp qayladii ayaa ka dhamaatay isagoo caadiyan kursiga aan ka kicinba. waxaa la arkayay isagoo xanaaqsan oo fadhiga ka kacay oo ka dalbanaya ciyaartoydiisu inay hurdada ka kacaan. iyadoo haddaba la kala joogo hal iyo eber walibana ciyaarta ay ku gacan sareyso City ayaa waxaa dhamaatay qaybta hore. qaybta labaad City halkeedii ayay ka sii waday maamulka ciyaarta iyadoo Banoonigaba ka qarisay Liverpool oo dhinaceeda dareentay inaanay waxba ka qaadi karin City. maxaa yeelay laacibiinteedu waxay wada ahaayeen kuwa aan u babadhaci karin reer Manchester. Liverpool oo iska weerarsan ayaa waxaa rajada ku soo celiyay daqiiqadii 77 joog dheeraha daafac dhexe ee Joel Matip oo kubad qurux badan madaxa la helay. Henderson's free kick for Liverpool, glanced away in there by Walker, lifted back in by Van Dijk, and headed in by Matip. Well, Liverpool level, and it's the central defender Joel Matip who's off the bench to tie things up in the Community Shield. It's Liverpool 1, Manchester City 1. qaybtii labaad ee ciyaartu waxa ay ku soo ilaatay barbaro hal iyo hal ah waxaana la isla aaday waqtiga dheeriga ah iyadoo labada kooxoodna ay waxba soo kordhin waayeen. waxa ay ka fursan weyday in la isla aado gool kulaadyo. rigoorayaasha laacibka lambarka 5 u qaba Liverpool ayaa khasaariyay gool kulaadka labaad ee Liverpool. ciyaartoyda Cityna waxay shabaqa u joogteen sidii la rabay sidaas ayay kooxda Cityna ku qaaday koobka Community Shield-ka. daawadayaal halka aad nagala socoteen waa Wadaagsan Production. fadlan daawada waxa xasuusun iga ah inaadan hilmaamin subscribe-ta si ay ku soo gaaraan wax walba oo aan soo gelino. mahadsanidin.